anigu markii isugu kay dambeysay waxaan ahaa Professor Saalax Jaamac Xuseen waxaan ka yimid Soomaaliya bilowgii 770kii jaamacadda Mareykan baan ka baxay jaamacad Cornell la yiraahdo baan ka baxay dhinacyadan aqoonta aan anigu inta badan ku maqnaa aan ku faruurixnaa waa mansada iyo falsafada intaan dalka joogay isku dugsiga sare banaadir baan ka baxay Muqdisho ku yaala wasaaradda arrimaha dibadda aan u yeeray shaqeeyay mudana aad u badnayn aan ka shaqeynay dhinaca hab maamuuska xiddigta Oktoobar baga Soomaaligeedana muddo ka shaqeeyay intii kale soo barbaara oo dalka ku nool oo riwaayadaha iyo fankan aad iyo aad u dhagtaaga baaraha waqtigii gabalkiisa waxaan geliyay turjumaada iyo buugtaan anigu qorayay gabayada iyo maasada Soomaaliga Carabiga Ingiriisiga iyo xubka loo aqaano walaal wax waliba waxay ku xusuusiyaan xusuusta iyo maalmuhuna way kala xanaf xun yihiin wayna kala xaraga macaan yihiin 1968 baan u maleynayaa iyadoo oo aanu la foolo ku jirno oo marka Mareykan iyo Yurub tacliinta loo aado ayaa nimaanu ilmaadeernahay oo loo oran jiray Allah yarxamo Mawel Maxamed Shire Maxamed baan leeyahay ayaan ku yiri Mawel maxaad scholarships ku qayb gali weydaad Mareykan u qaban weydii markaas uu warsada Allah ku galay miyaad maqal heesta Cali Sugulle u sii daayay markaas wuxuu ii mariyay heesta ahayd ama kaag iyo yaab argaga xabaaya macaanay ii sheeg maxaa ku daran aboo macaanow afqalaada qoontu miyaa maya ma he afqalaada qoontu miyaa maya ma he waa intuu qofba eebba gashaa ayay nala tahay annagii ma og tahay dib looma abuuro dadka taas ay ku dhalisay inaan dhagaar u taago oo u digtoonaado heesaha lagu tilmaamo inuu Cali Sugulle lu kuleeyahay wadan dabta Cali Sugulle ayaan bartay dadnimadiisii macaaneyd sheekadiisii xariirta ahayd iyo akhlaaqdiisii kaftankiisii sunduusiga ahaa oo aan weliga ka xiiso goynaynin baan u dhaadhacay dabadeetona waxay socotaba waa todoraato aan haybinay warta waxaan weydiiyay Cali Sugulle muxuu ku dambeeyay ilaa lagu yiri war meelad maqan Cali Sugulle magaaladii Dubai ahayd ayuu ku dhintay aniga oo aan baroodiiqda ku dheeraanaynin oo ku soo gabagabeynaya baroodiiqda igu jirta dadka badankooda ku jirtana ay tahay oo ina ka tacsiideynayo af Soomaaliga ina ka tacsiideynayo dadka Soomaaliyeed maasadiisa jeclaa oo idin oo ka tacsiideynayo qoyskii uu ka dhintay caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo duriyadiisii anoo ka tacsiideynayo ummadda Soomaaliyeed wajigooda laga qoray afkoodana uu ku ababay dabadna wax ku daray kamid ahaato inuu ku daray ereyga abmishaar la yiraahdo oo hadhooto isagii daalac loogu raaco lagu qabsaday mar dabadeetna uu ka samata baxay baa waxa farxad ii ah inuu inooga tagay dhaxal weyn oo ballaaran oo ha ahaado maktabad weyn oo intaas oo kun oo buug ku taalo oo gunta Afrika intii ku gubatay dadna dabeelaha iyo saxal ku qaadeen laakiin ugu yaraan wuxuu Cali Sugulle inooga tagay oo ay mar walba aan la ilaabaynin oo heesihiisii iyo gabaydiisii ah oo aan ka sii xusuusto markii uu lahaa subag weel ku daatay sina kuma xumaadee Soomaalidii sinaatay saxalkii baxyo samaatay in lagu seexdo haseexan xilbaad sidaaya haseexan soo jeed oo feejigno abwan Cali Sugulle oo kamid ahaa ninkii hormoodka boo ahaa walaalaha Hargeysa markii ugu horeysay la bilaabayay fanaaniinta riwaayadaha sameeyay la isku darayay kooxda Waabari odayaashii aan abaabulkeeda lahaa wuxuu leeyahay heesta doqon magaratida ee heesaha ku jirta ee lagu furo riwaayadaha marka teatarka qaranka laga dhigo oo la yiraahdo dadweynaha hor yimow halka nagaga taalaan horaan u ogeynay halka waxaad u timaadeen aan hagar lahayn baa caawad laga helaysaa waxaaba far badan hagar lahayn baa Cali Sugulle ka hadlay oo ay kamid ahayd markii ay dawladii musuqmaasuq ahayd ee loo halka weynaa ay mugdiga gashay oo
safaaradaha ajnabiga ay Soomaaliya sida haad baalasha looga guray ay uga gurayeen oo dadkii aanu igmanay ee baarlamaanka aanu u dhiibnay iyo xildhibaanada aanu ka dhigan ay beedhi qaatiyal noqdeen ee ciidamadu ka soo gaareen la afgambiyay heystii ugu horeysay ku bushaareeyay dadku lahaa Toronto dhacday kubtay ayaa taqaan talaabsan weyd oo dhacday ayaa taqaan maxaa taqaan ali anu waxaan jeclaa oo aan dib loo heli doonin marka kooda luuliyo iyo 26 Juun la gaaro isaga iyo magool fanaaniinta kale baa intii gawaadhi ka haystaan ayaa xaafadaha xamar lagu wareegi jiray markaas dadka loo heesi jiray markaas dadku iyagoo iskood u soo baxay ay dhageysan jireen aftahamada oo hadalka ku jeedin jiray anigoo yar baan dhageysan jiray ayaana weliga ilaabeen aftahamadiisa waxa nooga sii hadhay oo dhalinyaradu ay ku barbaartay markii uu lahaa alla bulugle maal badan leh baaxad iyo xoog leh bile inaga leh kuwii bilaabay ee dabkan baxaya belelinayay waa baayadooda kuwii ka bayray ee bahdood ka leexday ee boqonta gooyay waa baabooda barbaraadna ay ogomaysay baaba ee waaba bariyay bilicsan arooryo baxsan maalin waxaanan ilaabeen marka uu dadka Soomaaliyeed halkii jimcada uu ka lahaa mugaabada hashaada ka roonmay dhalaalka oo waxa maraqa loo siisay maahiriye jiqeen oo isaguna heestii tiriyahay nimaan deedeen ma helo dheefay deediday oo dambala ciida oo ku dhuftay hadda oo baroodiiqdiisii jiridcadeedii ugu taagan tahay heesihiisii oo dhan iyo gabayadiisii ma wada xusuusan karayo oo hadba waxaan la leecleecayaa muuqiisii oo ii muuqda iyo waayitaanka hadda soo gaaray waxaan ilaahay ka baryayaa inuu jannada ka waraabiyo waxaan ilaahay ka baryayaa xusuusta ummadda uu ka dhashayna inuu mid magoolan weligii ka guurin oo maskaxdooda ka bixin ahaado waxaana dhalinyarada cusub wiilasha iyo gabdhaha barbaarta ee hadda filka cusub amba qurbaha ha ku dhasheen amba iyagoo carjo ah halka ha yimaadeen aan ku dhiirigelinayaa inay baadi doonaan gabayadiisii iyo heesihiisa aan caanka ahayn si ay u arkaan garaadkiisa iyo kasmadiisa xildheeridiisa heerka ay taagnaayeen taas waan hubo طبكم ضحايا بللنا يوابا يهودا